مشايخ الكرام سؤال أهرسو قبل أي سوقرتي وحيلا هاي عندها نبى سوقري وحليه هاي قبل لقبة سنان لقبة أيان نك هذه كفرتي كدبنا وأسكت تقني أور بيالتي كدب بنقول سدوليه أيضا أور كله marka wuxuu leeyahay maxaan sameyn karaa gabadhina waan qaba hadda oo waan guursaday laakiin ayadoo uur la ayaan guursaday uurkaasna asaga iskale bimaana ninkii hore oo isqabaan ayuu uurkaas dhacay marka maxaan sameyn karaa cunugiisa xaalkiisa muxuu noqon karaa Soomaalida waxay yiraahdaan gabadh baa waxa laga waaninahay naaxumaanta jooji ayadoo la waaninahay waa waxay tiri ii dhaqsada waa lay fadhiyaa marka wixii caaw dhan laga hadlay ayaaba hadda waxa bilaabatay koobet waa mid ugu fool xumayd waa ninkaasi runtii arintiis waa culusta dulmi dhowr dhinaca buu ku jiraa ama uu galay faaxishadu markay zina kaligeeda tahay quraanku waad aragteen oo aad buu u weynay magaca ilaahay u bixiyeen faaxisha loo bixiyay faaxisha waxa la yiraahdaa waa shayga fool xumada meesha ugu dambaysa ka gaaray waa zinanimada waxa dheer nin walaalkii ah oo muslim ah oo xaq ku leh bal xuquuq ku leh buu gogoshiisii wasakhay ayaduna waa jariimo weyn laana way kala duwan tahay haweenay aan guri lahayn oo nin lahayn iyo mid nin le way kala duwan yihiin zinadii baa kala culus iyadana culayskeeda ay leedahay mar kale culayskeeda ay leedahay oo inuu islaantii ka furtay ninkii ilaa hadda soo mudhin waan qabaa Soomaa macnaheedu waxa weeye ninkii hore qabay ayuu ka sasabtay oo ka furtay oo markuu banaanka soo dhigayna wuu guursaday ayadana waa qodob kale oo guri inuu dumiyo oo ninka xaaskiisa kala hoos baxo ayadana waa jariimo weyn oo ka weyn xoolo la iska dhaco qodobka kale ta wax weeyaan uurkan uu ka hadlayo ee ninku intuu qabay yimid ilmahaasi alwaladu lilfiraash buu nabigu sallallahu alayhi wasallam haweenayda ninka qaba ee xaaska u tahay gogasha u tahay inta uu xarigiisu ku xidhan yahay waxay dhasho isaga iska leh allahumma inayna ka suuroobi karin mooyee sayna uga suuroobi karin maalan xilli aysan isaga u dhali karin bay kala maqnaayeen xilli ayna caadada iyo curfiga haweenaydu aysan muddada uur lahaan karayn ayay ilmaha ku dhashay caad ahaan suurtagal ma markaas oo kale inay dhashay waa ilma zina waa laakiin marba hadduu ka suuroobi karo alwaladu lilfiraash ilmaha waxaa iska leh ninkii islaanta qabay ee gogosha iska lahaa walilcaahiri alxajar buu nabi sallallahu alayhi wasallam ninka zaaniga ee reerka soo dhaxgalayna asaga dhagax buu leeyahay asaga abaalkiisa waa in dhagax la dhaco laakiin maanta dhagaxi ma hayno ninkaasi ilaahay toobada waa aqbalaa laakiin dunuub waa weyn buu galay sida uga bixi karana ninkii walaalkiisa gogoshiisa uu fadareeyo haleeyay sida uga xalaashan karo idinka ma sawiran kartaan ya xaq bini aadan waa gurigiisii buu ka qaatay gogoshiisina waa ka wasakheeyay intaad u tagto ma dhihi kartaa gogoshii baad yaan ka wasakhay raalli ahow yaafi nin tuur le tabu saxda isaga yaqaan aday ku taala laakiin mid baanan uu ku sheegi ilaahina u soo laabo haweenaydaasi aad sida khaladka isugu timaadeenna ku celi ninkeedii dib ugu celi hadduu qaadanayo ilmaha warkiisa ka bax
qodobka kale wuxuu yahay ninka walaalka ah inaad cafi weydiisato waa inta keliyata inuu ku cafiyo tii ilaahay iyo zinadaad gashay baab kale waay laakiin isaga dhankiisa xaq u lahaa inuu cafiyo umbu ku dhici karaa haddaad tidhaahdo ma hortegi karo ama fidna ka weyn baan ka baqayaa anigu kuma dhihi karayo hawshaasi saasay ku dhammaan laakiin waxaa lagaaga baahanayaa cimrigaaga intaad nooshahay ninka walaalka inaad u ducayso bal wuxuun xaqiisii wax ka mid ah inaad gudi karto inaad isku daydo inahaas baan ka dhihi karaa waana runtii fasaad aad u weyn waay fasaad aan sahlanayn iyo dembi aad u culus waay wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh su-aasha lixaad waxay leedahay xijaabka gacmaha ka duleela ee maalmahan gabdhaha aad ugu soo batay bal ka warran bal yaa idiin tolay kaa isaga ya maalin boqolonba wax inoo keentee kaa yaa inugu soo biiriyey khaliijka waxaan ku arki jiray waddamadaas muxuu ahay khaliijka ayaa waxaa soo baxay kambaniyo ka ganacsada dumarka xijaabkooda sida dharkii kale dumarku ku labisan jireenba moodooyin loogu sameeyey oo kolba waa isbedelo mid baa soo baxay nooc kale haddana yimid mid kalea yimid baa xijaabkiina noocaa la geliyey markaasa waxaad arkaysaa xijaab noocee abaad rabtaa xijaabkiibaa marka intaasoo nooc yeeshay طبعا xijaab ma aha ee shuruudiisii baa la khafiifiyey waa laga tegey waa la guray waa la galay markaasaa waxaa laga dhigay wax macno la'aan tii iyadahayd baa innagana hadda inugu socota waxaa laga yaabaa mid ganacsada ah baa intuu fadhiistay buu fikiray markaasuu wuxuu yidhi see baad ku keentaa wax aan meesha ka jirin ood maalmo waxoogaa kaga dhufato waxoogaa qaadato markaasaa waxaa laga yaabaa inuu keenay gabdhahan uun gacmaha hoos ugu jiraan meelay gacanta kala baxaan sameen asaga ujeeddadiisa dhan waxa weeye waxaan meesha oolintaad keenta waxoogaa dhaqaala aad maalmaha kaga dhufatay laakiin wax badan buu runtii kharib maradan weyn ee loogu talagalay jilbaabka ah waxaa loogu talagalay jidhkaaga inay ka kor marto sax gacmahaaga haddaad adeeganayso waad la soo bixi kartaa mushkilo ma leh laakiin asalaan maradu waa inay kaa wada korayso gacantan marka bannaanka laga saaray iyadoo dhan xuduuddii iyo gacantii oo dhan bannaanka ay taallo maraa ku dheggan waxaa laga yaabaa waxaad qabtaa muxuuha funaanad ama wax kugu dheggan baad qabtaa astur maaha marka gacantaadii astur ma aha soomaynaan soo marin asturku waa inuuna jidhka ku dheganayn soo ma jidhka qaybta uu saaran yahay waa inuusan ku dheganayn hadduu ku dheggan yahayna waa inay maro kaloon ku dheganayn ka korayso marka gacantaadii iyo xuduuddaadii oo dhan baa bannaanka taalla ayadoo oo muxuu ahaayey xijaabkii weynaa uusan ka korraynin saas daraaddeed xijaabka noocaasa maaha xijaab saxa maaha astur saxa maaha waa in marka laga fogaado dadkana looga digo wallahu aclam